بسم الله وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه waxaan nasiib darro ah oo qalbiga iyaga gilgishay dhibka ka dhacay jidbaale inta dhimatay waxaan leenahay inna ilaahi raaji'uun samir iyo iimaan aad bay noo dhibaysaa dhibka soo noqnoqonaya إن شاء الله تعالى هل كان رجدي مريسي النبضين تا وحكسوا بحدونا صدح اسم قرات شامع قرات إسماعيل وقاس محمود وقاس عبد الله يا قرات عبد السلام حسن محمد ونقصوا قورين دونا أنت يذكرنا حاجة هل كان تالي بأنه لما يستر كذا وسي جوج دونا وحنو نقبل لنا عقاقنا نسقون مانو waxaanu labada reer ee dhibku walaalaha ah ee dhibku dhaxmaray leenahay dhibku inta ayuusan dhaafin wafdigan annagana matalay ee soo kicimay hal loo dhaga nugulaado waxaanu ku baaqaynaa nabad degdeg ah oo aan shuruud lahayn oo la isku soo gaaro ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan dhibka inta dhaafin intii dhimatayna Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Allah u boogadhayo waxaanu faraynaa labada dhinac inay xabadaasi ay joogsato si aan shuruud lahayn ay ku joogsato insha Allah ta'ala garaad Cabdisaaq Garasoofe raaji'uun shilkaas hadda la soo sheegay ee jidbaal ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay runtii waxaan ku tilmaami karnaa nasiib darro waxayna iyo taladeena waxay noqotay wiilasheenna inay qoryo la ordaan oo istilaan wax garadkeenna daba ordo marka arinta aad baan uga xunnahay annaka waxaan samayn karnaa waa inaan talino ismada xagga aadaya iyo annaka hadda hawshan u hadhaynaba waxa la samayn karaa inaanu talino weeye taladaan ku talinaynaa waxa weeye ilaahay inaad ka cabsataan xabadda inaad joojisaan inaydaan isdilin inaydaan gabdhihiina kaga oohin ilaahay ka cabsado xabadda joojiya wax khasaare inta hadda dhacday haynoo ahaado dadka idiin imanaya iyo dadka idinla joogala maqla waxaan leenahay arintaas waa nasiib darro waxaan khasaarayn ka helimaysaan waxaan cadaab ahayn ka helimaysaan xabadda inaga joojiya dadka kale ee hadda bad qabana waxaan leenahay maalinba labadii reer ee dadka ugu fiicnaa ee loogu kuunyayayba waxa dhex marayaane ku baraarugo ilaahay ka cabsada xabaddan hala joojiyo aad iyo aad baa mahadsantahay raaji'uun aad iyo aad baan uga xunnahay warka aanu ka maqlay jidbaale labada reer ee walaalaha ee isku dilay wixii dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacmeena ilaahay u bogadhayo waxaanu baaq dheer ugu diraynaa labada dhinacba inay dagaalka intaa ku ekaysiiyaan isxakameeyaan ilaahay ka yaabaan labada dhinacba waxaa ka dhintay isku dhinac weeye isku dad weeye walaalo weeye dhibaato deegaankeenna haysata weeye waxaanu ku jirnaa taasoo kale waa isa soo qaybinay hadda sida garaadadu idiin sheegeen saddex isin baa soo baxaya dagaalka hala joojo ilaahina ha laga yaabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرنت نولو sheegay shilka saaka dhacay aad iyo aad baan uga naxnay aad iyo aad baan uga naxnay waxaanu soo diraynaa baaq xabadda lagu joojiyo hal joojiyo xabadda burmadka iyo reer hebel baa halkeer isku haysta yaa idinka reebay oo wakhtigeennina lumiyey hal joojiyo burmadka hal joojiyo xabadda hal joojiyo wixii dhintayna Allah u naxariisto wixii caafimaad qaba wixii dhaawacana Allah u sahlo aad iyo aad baan uga xunnahay arinta shilka ah dhacday intaasaan soo jeedinaynaa cidda waa soo diray cidda kalena waa ka daba imanaysaa iska daba imanaynaa insha Allah ta'ala waxaanu idin rajaynaynaa in aad joojisaan xabadda bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna raaji'uun inna lillahi wa inna raaji'uun halkan waxaanu runtii baaq nabadeed uga diraynaa oo runtii muriga leh annagoo ku jirnay xaajadii aad ogeydeen ee hagar iyo hayaag
saakana Itoobiya xuduudeeda ka soo galay mar dhaweyd waxaanu maqalay in haddana nugaal la isku dilo jidbaale iyo xudun inta u dhaxaysa laba beelood oo walaalay haddana isku qabsadeen rag badan ku dhinteen ragna ku dhaawacmeen oo waliba Siyaad Maxamuud oo wada dhashay waxaanu idin leenahay horta annagu haddeeraanu soo galnay dhulbahantana maalin walba laba reer oo isdilayay inaanu ku dhex wareegnaa yana ceeb bay ku tahay anana wax way dhibaato nagu tahay haddeerna waanu baxaynaa waanu tegaynaa ma nasanayno anigiyo Garaad Cabdisalaan iyo ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi baabaxayna oo naloo qorsheeyay iyo cuqaal salaadiinta inta kalena way soo baxayaan markaanu hawshan ceegaag iyagu ay xadda ay dhamaato laakiin anagu ka sii horeeynaa xabadda joojiyaanu dileenahay joojiya nin dambe yaan xabad lagu ridin nabadgelyo hal la qaato anana waanu diimaana saacadaha soo socda insha Allah hadaanu nabadna wadin la joognaa war hal la joojiyo Siyaad Maxamuud xabadda hal la joojiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن لقبا اسمada iga horeeyay baan la qabaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kuma faraxsanin sida wax u socdaan aad iyo aadna waa uga xunnahay haddana waanu dhaqaaqaynaa socod baanu nahay mid kalena waan ka soo galay hal ismaqlo xabadda hal la joojiyo waxba intari mayso koorad heshiisaan baa la heshiinayaa dad uu dhintay in bad kordhinaysaane iska daaya xabadda joojiyo aqligu ha taliyo joojiya saasaan dilnaanahay waan idin soo ducaynaa ilaahay inuu beerkeena bacad isku mariyo dhibaatada inuu la joojiyo ilaahay saasaan ka baryanaa ilaahay hayna badbaadiyo qoys dadkeenu qalquudha ma noqonaa ummad toban u qaybsami qurux yeelan mayse qayrkeen ma raacna